Assalaamu calaykum. YouTube channelka aad naga daawanaysaan waa Xasan Media. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Mawduuceena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa 6 ka mid ah dadkii caanka ahaa ee geeriyooday sanadkii 2018. Qofka koowaad Professor Stephen Hawking. Professor Stephen Hawking siyaasiyahankan u dhashay dalka Ingiriiska wuxuu ahaa nin ku xeel dheer cilmiga maadada fiisigiska wuxuuna noqday siyaasiyinkii ugu qadarinta badnaa uguna caansanaa jiilkiisa. Stephen Hawking wuxuu 8 bishii Janaayo ee sanadkii 1942 ku dhashay magaalada Oxford, wuxuuna sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Cambridge isagoo xilligaas ahaa 76 jir. Qofka labaad Aretha Franklin. Haweeneydan waxay ahayd fanaanad u dhalatay Mareykanka oo si weyn looga yaqaanay magaceeda. Haweeneydan waxay fanka bilowday iyadoo aad u da'yar, waxayna mutaysatay in loogu magac daro boqoradda heesaha loo yaqaano soul-ka, waxayna noqotay haweeneydii ugu horeysay ee ku caan-baxda qoob ciyaarka loo yaqaano rock and roll. Aretha Louise Franklin waxay 25 bishii Maarso ee 1942 ku dhalatay magaalada Memphis ee dalka Mareykanka, waxayna 16 bishii Agoosto ee sanadkii 2018 ku geeriyootay magaalada Detroit ee isla dalkaasi Mareykanka. Qofka saddexaad Johann Nagin. Nagin wuxuu ahaa rugcaddaa siyaasadeed una dhashay Mareykanka, aadna looga yaqaanay, wuxuuna khibrado fara badan u lahaa dagaalka oo loogu aqoonsaday halyeey. Ninkani wuxuu ka tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee Mareykanka oo ku matali jiray gobolka Arizona. Siyaasiyahankani wuxuu ka tirsanaa xisbiga Jamhuuriga. Sanadkii 2008 ayuuna u tartamay xilka madaxweynaha dalka Mareykanka, waxaana ka guuleystay Barack Obama. Nagin wuxuu 29 bishii Agoosto ee sanadkii 1963 ku dhashay magaalada Coca-Cola ee gobolka Panama, wuxuuna 25 bishii Agoosto ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Conver ee gobolka Arizona. Qofka afaraad George Bush wuxuu soo noqday madaxweynihii 41aad ee dalka Mareykanka. Markii hore wuxuu madaxweyne ku-xigeen u ahaa Ronald Reagan, wuxuuna noqday madaxweyne ku-xigeenkii ugu horeeyay ee muddo 150 sano gudahood loogu doortay xilka madaxweynaha. Ciidamada badda Mareykanka ayuuna ka mid ahaa xilligii uu dhacay dagaalkii labaad ee dunida, wuxuuna isagoo ka tirsan xisbiga ka soo muuqday xildhibaan aqalka sare u matala gobolka Texas. Wuxuuna 12 bishii Janaayo ee sanadkii 1942 ku dhashay magaalada Milton, wuxuuna 3 bishii November ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Houston ee gobolka Texas. Qofka shanaad Barbara Bush. Waxay ahayd xaaska madaxweynihii 41aad ee dalka Mareykanka. Barbara Bush waxay ahayd haweeneydii labaad ee abid taariikhda dalka Mareykanka ka soo noqotay marwada koowaad iyo hooyada koowaad labadaba, iyadoo marna ahayd xaaska madaxweyne Mareykan ah, mar kalena ahayd hooyo dhashay madaxweyne Mareykan ah. 8 bishii Janaayo ee sanadkii 1925 ayay ku dhalatay magaalada New York. 17 bishii Abriil ee sanadkii 2018 ayayna ku geeriyootay magaalada Houston ee gobolka Texas. Qofka lixaad Morgan Tsvangirai. wuxuu ahaa siyaasiyahan aad looga yaqaanay dalka Zimbabwe, isagoo muddo dheer mucaarad ahaa, isla markaasna loolan gelinayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe. Isagoo ra'iisul wasaare ah ayuu ku qanci waayay halka uu dalka ku socdo, wuxuuna sanadkii 2017 ka qayb qaatay isku day wadada loogu xaariyay in xilka looga tuuro Robert Mugabe. 10 bishii Maarso ee sanadkii 1925 ayuu ku dhashay magaalada Juja ee dalkaasi Zimbabwe, wuxuuna 14 bishii Febraayo ee sanadkii 2018 ku geeriyooday magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika. Waad ku mahadsantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, dambalaalkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino. Mahadsanid. Waxaa inoo ballan ah muuqaalka xiga iyo inagoo nabad qabna insha Allah.